aniga saameyn gaar ah ay igu lahaydo waan idinka maqnaa laakiin markii baan salaad u kacay oo ilaahay idin soo bariyay in ilaahay inta kaluun balbadbaadiyo raxiim runtii booqashadeedu waxay daaran tahay waxa weeye inaan indhahayga ku arko dhibta meeshan ka dhacday maadaama aan maqnaa dadkana aan xaramkan joogo markii habeenkii dabka la soo sheegay aad aan ugu soo duceeyay in ilaahay dabka ay nagu fidin 220 qof ama meheradood oo khasaaro gaadheena warka waan hayaa iyo xogteeda adduunyo wixii dadka kaga baaba'ayna xogta waan hayaa shacabkayga waxaan u sheegayaa in halkan aan fariin uga diro intaas baa ugu muhiimsan hadalkayga waxaynu nahay ummad markuu waqtigu adag yahay iskarabsata waa ogeydeenoo dabkii ka dhacay suuqa Waaheen oo ha khasaari ugu weynaayo dalkan soo mara ama magaaladan soo mara waynu kacnay waynu iskarabsanay waynu ka soo kabanaynaa tanna sidaas si la mid ah ayaanu 220 kaga qof ee dhibaatada soo gaadhay dawladda hoose iyo qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo shacbi weynaha reer Soomaaliland oo isu tagay ay u garab istaagayaan insha Allah Ilaahi idinkii dibna waynu uga soo kabanaynaa waxa la doonayaa oo waxa weeye masiibooyinku way dhacayaan waana soo noqnoqonayaan dadku laba inay ka bartaan weeye inaynu ka taxadirno in dhibtan oo kale ay nagu soo noqoto oo wax kasto suuragal aynu samayn karayna aynu samayno waa talabaade dadku marka ay qaar inaga mid dhibaato soo gaadho inteena aan dhibaatada soo gaadhin inaynu kacno weeye inaynu jeebka gacanta gelino weeye walaalkeena dhibaatadu gaadhay inaynu u kacno weeye imaka ilaa 2 magac baan dhagahaygu maqleen cid doonaysa inay hawshan gacan ka geysato waa la sugayaa magacyada kalena reer Soomaaliyeednimadu waa walaalnimada waa wada jirka waa iska canqabashada waa maalintii daran tahay oo ka dhibaatadu soo gaadhay la barbar istaago weeye waa sugaynaa codka waxaan ugu idinku bushaareynayaan gudoomiye dadkan aad iga gaarsiinaysaa ilmo wada gaari kareen dawladdiina hoos weyn barbar taagan tahay qarankiina waa idin barbar istaagaya dadkiina reer Soomaaliland oo idin kacayaan ilaahay idinkiina waynu ka soo kabanaynaa biidmillaahi tacaala si dhaqsaa oo degdeg badan ayaynu u suuro gelinaynaa inaad goobaha ku ganacsataan heshaan waxa dhex dhigtaan waxa ku iibsan leedeena ina heshaan biidmillaahi tacaala ilaahay idinkii qalbigiina wanaajisanaynaa inta dhibaatadu gaadhina ilaahay waxaan uga barayaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala in ilaahay qalbiga u adkeeyo oo samir ilaahayna inta yara u soo hadhay inta dadkooda ay u keenaan iyo inta qarankoodu siin doono in ilaahay u barakeeyo oo ay u qarqarxdo oo ay noqdaan taajiriinta bari hadiiba dhibaato alla inaguma keenay dhibaba dhacdo kuwa ugu horeeyay dhiirada reer Waaheen gaar baan ula hadlayaayo Waaheen anagu dhibaato bay idin gaadhay oo wali aydan ka soo kaban oo meeradii wali dib aydan u furan haddana dhibta idinku horeysay waa la idin kacay idinna waxa la idinka rabaa haba yaraatee ina kacdaan baa la idinka doonaya waa la idin sugayaa halkan baa la idinka sugayaa insha Allah tacaala waynu wada fadhiisanaynaa cadceed iyo sirjoog waxba la isku ma yiraahdo qorsheenu dejisanaynaa guddiga madaxweynuhu magacaabay ka shaqaysiinaa hariya habeen shirarkii baa qabsoomaya qorshahaynu dejinaynu hirgelinaa saa ugu dhaqsaa badan ilaahay idinkiina biidmillaahi tacaala inta kalena dadka waxa laga rabaa halkan oo wanaagsanaatii ducada in la soo barbar istaago rajo fiican baynu qabnaa waxaynu qabnaa suuqeena inuu dib u dhisanayno dadkeenii masaakiinta ahaa ee xoolahoodu ku gubteena inaynu insha Allah tacaala gacantooda gelin doono waxay dib ugu shaqaystaan biidmillaahi tacaala xubnaha guddiga ee golaha deegaanka ee shaqadan hadiya habeen u taagan waanu ducaynayaa shaqaalaha dawladda hogaamiyaasha hogaamiya oo nagu ducaynaya dabdamiskii dabka baqtiye oo u ducaynaynaa guddiga heer qaran ee wasiirada ah inuu ku jirnana iyagana waa u ducaynaynaa guddigan matalaysa dadkii dhibaatadu gaadhayna iyagana way u ducaynaynaa ilaahay waxaan ka barnaa ilaahay ducada ay naga aqbalo walaalnimo iyo midnimo iyo walaalaheena dhibaatadu gaadhaynu barbar istaagno waad ogtihiinoo markaad joogto ee dhex taagan tahay ee garif leedahay iyo markaad maqanteed fogteena waxba qaban kareen way kala duwan tahay
aniga saamayn gaara bay igu lahaydo waan idinka maqnaa laakiin markii baan salaad u kacay oo ilaahay idiin soo bariyay in ilaahay inta kaluun balbadbaadiyo ilaahayna waan ugu xamdinaqayaa in 220 ay naga ekaatay ila xoolaheennii oo dhan baa halkaa yaala waxaynu dhaqaalahaynii baa halkaa yaala waa hayn markii baabaaday dhaqaale kala ma hayna intaa yar gobonimeeda cadda taala ayaynu haynaa ilaahay waxaan ka barayaa in ilaahay inoo badbaadiyo dhaqaalaha oo dhaqaalaha inoo ilaaliyo oo dhibtan oo kale dib inoogu soo noqon insha Allah ta'ala